بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yidhaa cali xuseen nuur naanaysaydana waxaa la yidhaa cali dheere haddii aan ka hadlo xaaladda guud ee dalka xaaladda guud ee dalku waxay maraysaa meesha ugu adkayd ee bini aadmi maro iyo xaaladda dalku marahaya dalku biyo male biyo ma haysta dadku ummadda Jubbaland biyo ma haysato waxay u baktiyeysaa oon biyo male dalku biyo male dalku wada male wax wada uu dalku leeyahay ma jiro dalku raashin male wax raashin oo dadku haystaa ma jiro gaajuu la baktiyayaa dadka Jubbaland suu dhaya gaajuu la baktiyayaa arrintaa waxaa ugu wacan hogaamin xumada ka jirta dalka hogaamin xumada dalka ka jirta yaa dhibaatada intaa la keentay hadday xaaladdu sidaa tahay oo dalku heerkaa marahayo waxaa loo baahan yahay wax la yidhaa isbeddel dhab ah oo runa oo xalaala ayaa loo baahan yahay waa dhoweyd waxaa la yidhi dalka doorasho yaa ka dhacday yaa laga samaynhayaa doorashada meesha ka dhacday tu xalaala ma ahayn doorasho xalaala ma ahayn annagu dalkan joognaa xogogaal baan nahay wax walba waan ognahay wax naga qarsooni ma jiro wax doorasho ah oo xalaala oo dalka ka dhacday ma jiro waxay ahayd xaaladeedu iigu shub yay ahayd waa loogu shubay dadka waxbaa dooranhaynaa yidhi baarlamaan bay lagu magacaabay dalka baarlamaan ka jira oo xalaalahi ma jiro wax la soo nin walba la keensaday oo nin alla ninkii inuu xalaal iyo waddo xalaala mari la ogaaday la eriyey oo loo diido inuu galo doorashada galo yay ahayd waxay ahaayeen dad meesha la keensaday oo dad keensaday yuu ahaa baarlamaanka dalka wuu ka jiraa laleeyahay dad la keensaday oo dad keensaday yuu ahaa baarlamaan rasmi oo xalaalihi kama jiro dalka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay anigu dalku sidan kuma socon karo waxaa noo muuqda waxaanaan weligeena arag yaa noo muuqda weligeena waxaanaan arag yaa noo muuqda dad wuxuu yahay aanaan ogeyn oo dadka shacabka ee dhulka jooga ka mid ahaa oo dalka hogaamin baa noo muuqata dalka hogaaminhaya oo isagu wax walba kala amrahaya yaanu aragnaa tiitalkuu ku shaqaynhayo ma garanayno anagu dadkaasi tiitalka uu ku shaqaynayo ma garanayno waa tiital xaaraana waa tiital ku shuba ah mana raacayno mana ogolin sidaa daraaddeed waxaan leeyahay anigu oo cali xuseen nuur cali dheere maamulka meeshan ka jira waanu ka soo horjeednaa mana ogolin
dalku waa inuu helo maamul xalaala oo dadku u siman yahay oo ummaddu u siman tahay oo hogaamintiisu ay xalaal tahay oo wadda rasmi oo xalaala wax ku hogaaminaya waa in la helo maamulka beesha uu ka jiraa laleeyahay looma sinna maamul qoys baa meesha ka muuqda maamul qoys yaa meesha ka muuqda maamul qoys ma ogolin maamul qoys dalkan wax badan baan u soo halgannay wax badan baan u soo rafaadnay wax badan baa jidhka naga xabadi ku dhacday wax badan baanu ku dhaawacnay waxaanu ugu dhaawacmi jiray in ugu dhimanayna in u ordaynay roobka iyo dhaxanta iyo dabeysha iyo qoraxda aanu intaa marayno ugu dulqaadanayna inaanu wax ka yeelano oon wax ku yeelano masiirka ummadda iyo masiirka dalka inaan wax ku yeelano yaanu u ordaynay kama jira dalka kama muuqana dalka taladiisa waxba kuma lihiin bannaankaan ka taagannahay nalooma ogola nacfigiisana nalooma ogola bannaankaan ka taagannahay dad gaara yaa nacfigiisa iyo taladiisa haysta dad gaara yaa nacfigiisa iyo taladiisa haysta ummadda Jubbaland kulligeed waa wada sidaa Jubbaland oo dhan oon ilkaraar lahayn wax tala la weydiiyo iyo wax nacfiga dalka wax laga siiyo midna kama jiro boqortooyo waxaad moodaa meesha ka muuqda waxaad boqortooyo moodo oo qaab boqortooyo u dhisan yaa meesha ka muuqda boqortooyo iyo gumaysi haddaanu ogolaanayno Hayle Selassie ugu isticmaar fiicnaa Hayle Selassie yaa ugu isticmaar fiicnaa uguna qaboobaa isticmaar la maro waan diidnay waa laga dhaqaaqay kuumada wuu ka dhaqaaqay Soomaaliya oo dhan way ka dhaqaaqday sidaa daraaddeed waxaan leeyahay waa in isbedel ka dhaco dalka waa inuu yimaado hogaamiye xalaala oo dadka u dhaxeeya waa inuu yimaado maamul dadka u dhaxeeya waa in la helo intaas ayaan kaga baxayaa hadalkayga intaa ayaan ku soo koobayaa ugu dambayntii waxaan ku celinayaa waa in la helo isbedel waa in la helo xalaala oo ummaddu wada dhisatay ummadda u dhisan oo dadka u siman yahay dhab ilaahay waxaa run ilaahay waxaa dadka uma sinna maamulku sheega meesha ka dhisan dadka uma sinna dadka looma ogola dadka waa cabursan yahay baahina way dishay waxa la yidhaaho qatooyona way dishay lagu dulmaydhanhayo dad gaara yaa wax ka haysta Soomaali Jubbaland dad gaara wax ka haysta dowladda federaalka ee dalka ka dhisan waa dowladda ummaddu dhisatay weeye waa federaal dadka oo dhan bay u dhaxaysaa dadka oo dhan yay dowladdaas u dhaxaysaa waa federaal ummadda Soomaaliyeed baa samaysatay annagu laba nihin dowladda federaalka laba nihin waxay nagu bi'isaynaa ma jiro waa dowlad cadaalada oo dadka u dhaxaysa oo ummadda u dhaxaysa oo Soomaaliyeed hadalkayga ninkii ka naxiyo
كنح نيكي ودانيا صوماليا حلالة هونا صرع هذا الكيك صرع وانا دي قرنا يسانانيا سيدا انا هاي وداني نمكا هاي واد ودوكتين كلين هيك كان ما انت مري وحي قارسيي وداني لان نمدا ارلada ka jirta wadani maxumada arlada ka jirta yaa heerka ay gaarsiiyay aniga wadi ogtay wadanimo meeshan ka taagnahay wadi ogtay waxa kobta ay gaarsiiyay waa waxa nagu dhacaya weey والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته